mid ka mid ah xamaaratada ku noolaan karaan biyaha iyo berigaba, waxaana laga helaa oo ay ku nool yihiin Afrika, Aasiya, Ameerika iyo Australia. Sida xamaaratada kale ayuuna dhiiggiisu u diirnayn, taasoo ka dhigan inuu noolaan karo muddo dheer cunto la'aan. Waa mid ka mid ah hilib cunayaasha sida daran wax u ugaarsada ee loogu cabsida badan yahay, waana midka ugu xajmiga weyn xamaaratada oo idil, maxaa yeelay dhererkiisu wuxuu gaari karaa ilaa 6 mitir halka culeyskiisuna uu gaari karo wax ka badan 1 tan. Yaxaaskii ugu weynaa ee dunida lagu arkay waxaa laga helay biyaha milixaysan ee dalka Filibiin, waana yaxaas loo yaqaan Lolon. Dhererkiisu wuxuu gaaray 6.17 mitir halka culeyskiisuna gaaray 1,075 kiilogaraam. Waxaa dhimashadiisa la ogaaday 1975, waxaana dhigay Madxafka Qaranka ee Filibiin. Haddaba waqtigan ay joogno waa kee yaxaaska ugu weyn caalamka? Yaxaasyada nool midka ugu weyn waxaa loo aqoonsan yahay Cassius oo ku nool jasiiradda Green ee dhacda Australia, wuxuuna dhererkiisu gaarayaa 5.84 wuxuuna ahaan jiraa 140 sano. Sidoo kale yaxaaskii ugu da'da weynaa ee dunida lagu arko wuxuu ku noolaa Australia, gaar ahaan gobolka Queensland, waxaana dhimashadiisa la ogaaday 2010. wuxuuna ka mid ahaa yaxaasyada ku nool biyaha fareyshka, waxaana loo yaqaanay Master Fresh, wuxuuna dhintay isagoo jira 140 sano. Sida guud yaxaasyadu waxay ka mid yihiin xayawaanada muddada dheer noolaan karaan, waxayna celcelis ahaan u noolaan karaan 60 ilaa 70 sano, balse kuwa webiga Nile ku nool cimrigoodu wuxuu gaari karaa 170 sano. Sida guud bahda yaxaasyada oo idil waxaa loo qaybiyaa ilaa 23 nooc oo ah muuqaal ahaan aad ay isugu egyihiin crocodile-ska iyo alligator-ska. Sida guud waa bahda yaxaasyada, laakiin waxay ka kala tirsan yihiin 2 qoys oo kala duwan. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeyana waa muuqaalka ama shakliga madaxooda, gaar ahaan afka, oo crocodile-ska afkoodu waa sida xarafka V, sida alligator-ska afkoodu uu yahay xarafka U. Markii la qaybinayo kala saarayay noocyada xamaaratada, yaxaasyada waxaa aad loola xiriiriyay dhanka dinosaur-ka, gaar ahaan marka la eego qalfoofta madaxooda iyo sayntooda dheer. Sidoo kale waxaa la sheegaa in yaxaasyada xajmigoodu aad u weynaa marba marka ka dambeysana uu sii yaraanayo muuqaalkoodii weynaa. Waxaa jira nooc ka mid ah noocyada ay yaxaasyadu u kala baxaan oo lagu magacaabo dwarf, waxaana loo aqoonsan yahay inuu yahay nooca ugu yar yaxaasyada. Noocan dhererkiisu wuxuu gaaraa ilaa 1.5 mitir halka culeyskiisuna gaaro 32 ilaa 40 kiilogaraam, waxaana laga helaa qaaradda hodanka ah ee Afrika. Yaxaasku waa xayawaanka ugu qaniinyada xooggan, gaar ahaan nooca ku nool webiga Nile-ka. Guud ahaan bisadaha waaweyn waa uu kaga horeeyaa dhankan. Yaxaasku kolka uu biyaha ku jiro ayuu awoodiisa oo idil haystaa, waana ay ku kala duwan yihiin dhanka xawaaraha, gaar ahaan marka ay biyaha ku jiraan, markaas ay aad u caawiso saynta dheer ay leeyihiin. Nooca ugu dheereeyana waa midka ku nool webiga Nile-ka, oo marka biyaha uu ku jiro wuxuu saacaddii jari karaa 30 ilaa 35 kiiloomitir, wuxuuna ku qasbay inuu dusha sare ee biyaha yimaado maadaama uu oksijiinta ka heli karin gudaha biyaha. Yaxaasyada araggooda aad ayuu u sarreeyaa xilliga habeenkii, waxaana xilliga habeenkii indhahooda ka muuqda dhibic gaduudan kolka uu bariga joogo, isla markaana afka kala taagayo. Inta badan waa markuu hurdo, mana laha qanjirrada soo daaya dheecaannada jirka qaboojiya, sidaas daraaddeedna wuxuu ku qasban yahay inuu bariga tago isla markaana afka kala taago si uu isaga dhimo kulaylka. Intooda badan waxay leeyihiin 6 ilaa 4 ilig, oo 4 ka mid ayaa aad u xooggan. Ilig markay ka dhacdana waa u soo baxdaa. Inta uu nool yahay yaxaaskuna waxaa u soo bixi karaan wax ka badan 3,000 oo ilig, wuxuuna xasuus mudan inuusan hilibka celinin ee uu cadcad u liqliqo. Waxayna ka siman yihiin dhammaan yaxaasyada dabeecadda ah dhagax cunidda. Dhagaxdana uma cunaan cunto ahaan ee dhagaxa ay cunaan waxay ka caawiyaan dhanka dheefshiidka caloosha. Waa sida uu qabo Madxafka Sayniska ee Miami.
Yaxaasyadu waxay isu tagaan waqti roobaadka waxayna midda dhigtaa 20 ilaa 80 kun waxayna ilaalisaa ilaa 3 bil waxayna ilmaha yaryar ee yaxaasku dhawaaq sameeyaan ka hor intaysan ukunta dilaacin. Nasiib darrose boqolkiiba 99 ee ilmaha yaxaaska waa kuwo la ugaarsado oo la cuno iyaga oo 1 sano ka badan nooleen. Yaxaasku waa mid ilmeeya laakiin ilintiisu waa mid aan dhabayn isla markaana aan ku qotomin farxad iyo murugo toona. Sababta uu ilmeeyana waxay tahay hawada badan ee afkiisa gasha ayaa ugu dambeyn gaarta ama taabata qanjirrada ilinta soo daaya waxayna hawadu ku cadaadisaa qanjirradaasi inay ilinta sii daayaan. Dhanka hoose ee maqaarkiisuna waa mid jilicsan laakiin midka kore ee ku daaran waa mid aad u xooggan waxaana laga sameeyaa maqaarkooda waxyaabo badan sida boorsooyinka gacanta iyo kabaha waxaana dunida ku yaallaan beero lagu xanaaneeyo isla markaana tirada loogu badiyo si maqaarkooda looga faa'iidaysto waxayna tani sababtay inay dabar go'aan nuucyo ka mid ah bacda yaxaaska. Waxaa jiraan dad la yiraahdo Chambari ee dalka ugu luqadaha badan looga hadlo waxaana Papua New Guinea waa kuwo qiimeeya aad u weyneeya yaxaaska waxayna aaminsan yihiin inay ka soo farcamaan yaxaaska yacni waxaa ka dhaadhacsan in awoowayaashood ahaayeen yaxaasyo.